قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. كلمة يربان tilmaamaya walaalayaal waa maqlaysaan kolley caalamka waxaa ka jira hadda xanuun kolley ku soo kordhay oo cusub oo fayraska corona caalamkiina aad iyo aad uga qaylinayo, cabsi badanna ku riday, waddanno badan galay, faafistiisuna aad iyo aad ay u degdeg badan tahay sida la sheegaayo. Dhibaato badanna kolley xanuunkaasi waa xambaarsan yahay. waxaanu ka dilaacay kolley waddankii yacni Chinaha ayuu ka dilaacay, waana waddan marka hore macruuf ku ahaa xanuunada khatartii inay ka dilaacaan, oo ahlucilmigii hore ay sheegeen. caalim noolaa qarnigii 7 ee hijriga oo dhintay 629 oo la odhan jiray muwafaq cabdulatiif albaqdaadi, kitaabuu qoray, waa qarnigii 7 waa 629 ayaa wuxuu sheegayaa markuu dabeecadaha waddannada ka warramayo. waddanka shiinaha markuu sheegayo wuxuu odhanaya waa awba'ul ard, waa dhulka ugu wabaaga badan, xanuunada khatarta ah dhulka ugu badan weeye, waana maxallu dawaaciin, daacuunnadu meelahay ka dilaacaan weeye, walamraad alqataala iyo xanuunada dilaaga ahi meelaha ay ku sugan yihiin weeyaan. wakhtigaasuu saa sheegaya. marka fayraskaasi waddankaasu ka dilaacay, iminkana dhul badan buu ku faafay, agagaarkeennana hadda waa ku soo dhowaaday. ilaahay ha naga badbaadiyo, ilaahay inooma keeno, dadka muslimiintana ilaahay ha ka hayo dhibtiisa, ilaahay ha ka badbaadiyo. waxaa loo baahan yahay aad iyo aad kolley in loo taxadiraa loo baahan yahay, aad iyo aad la ysaga jiro. xanuunkii hadda agagaarkeenna kolley waa ku soo dhowaaday. etoobiya waa lagu sheegay oo waa ku sugan yahay wax ka midi. kenya lafteeda waa ku sugan yahay, xanuunkaasi waa soo gaadhay. muqdisho lafteeda hadda ruuxii ugu horreeyey iclaansheen inay ka heleen, shakhsigii ugu horreeyey xanuunkaa laga helay inuu markaa jiro ayay hadda sheegeen. waana xanuun si yar u faafaya. waxaa loo baahan yahay horta fikrad in laga haysto siduu ku faafo, yacni waxaa weeye taxadirkeeda in la lahaado ayaa habboon. waa xanuun aad iyo aad ay u degdeg badan tahay faafitaankiisu. sida marka hore ruuxa ugu imanayaa ama taabashada ama qofaca ama hindhisada ayuu markaa horta ku faafaa, oo waxyaalaha sahlan ee uu ku faafi karo ka mida. taabashada la istaabto waa ku faafaa, wuxuna waa fayras, yacni jeermiska waxa ku saabsan waa dawooyin bay u hayaan, laakiin wixii fayras ah noocaa dawo uma hayaan. kansarku waa fayras, aidisku waa fayras, xanuunkan hadda la sheegaya waa fayras. dhammaan waxaasi wax hadda dawooyinoo loo hayaa ma jiraan. kani haddaba wuxuu kaga duwan yahay faafitaankiisaa degdeg badan. qof markaa waxa weeye halkaa ka hindhisay ama halkaa ka qofacay ayaa dhici karta qofka kale inuu saamayn karo. shartina ma aha neeftiisu inay qofka soo gaadho uu ku dhow yahay. meel ku dhow hadduu markaa ka qofaco ama ka hindhiso waxaa dhici karta inuu u tallaabaa la yidhi. saas aawadeed horta aad iyo aad dadkeennu tartiibaha aad uguma dadaalaan. iminka qofaca iyo hindhisada yacni marka horeba iyadoo xanuunkani aanu jirinba waxaa habboon inuu qofku iska ilaaliyo, isagaan mara ku qofacayn inuu iska qofaco iyadoo dad u dhow yihiin. waxay dadkeennu caado u leeyihiin gacanta inay afka saaraan oo siaa yidhahdaan ay ku qofacaan. afkay gacanta saarayaan deed oo ku qofa, ama labada gacmood ka ugu fiicani labada baabaco intuu subaba dhigo sidaa ugu daboolaya deedna ku qofacaya. hada qalad, waxalle wuxuu faa'iideeyey ma jirto. hargabku waa fayras. iminka waxa weeye waxay ku leeyihin bahasha tiibayda la yidhaahdaa, iyadu waa jeermis, dawaa loo hayaa. laakiin hargabka waxa weeye fayraska iyadu ka mid tahay, laakiin wuu sahlan yahay dee isagu. fayrasyadii baa qaarna sahlan yihiin, qaarna daran yihiin. marka uu qofku qofacayo, walow hargabba ha ahaato waxa ku sugan bee, waa inuu marka uu qofacayo marada afka saaraa, oo isagoo marada uu afka u saaran tahay uu qofacaa. laakiin waa inuu iska jiraa gacanta inuu ku qofaco. hada qalad. waayo hawadii gacantu ma celinayso
gacantana ma gelayso hawadu xaggay ka dhaafaysaa waa soconaysaa mar labaadka waxyaalihii markaa waxa ama jeermis ah ama virus ahi gacmihii bay ku sugnaanayaan dadkii buu ku salaamayaa marka tan noocaasi horta waa dariiqo qaldan waa in aad la isaga jiraa gacmaha lagu qufacayo waa in la iska jiraa waa in la caadaystaa marada markaa waxa weeye in afka la saaro horta lagu qufaco taas waa in lagu dadaalaa xanuunkanba haddaanu jirin xataa waa in la iska jaraa dabeecadda noocaas ah waxaan markaa hawadan faafaysaa yani waxa weeye qofkii waa ugu gudbi karaan ama hargab ha noqdo ama wax kaleba ha noqdo taas waa in aad iyo aad la isaga jiraa waxyaaluhu ku faafo waxaa ka mid a taabashada meel la taabto waxay yidhaahdeen taabashada meel la taabto fayraskiisu wuxuu ku sugnaanayaa 10 saacadood wax ka badan qof baa taabtay albaab ama wuxuu taabtay bir ama wax la mid u taabtay fayraska xanuunkaas taabashadaa la taabtay meeshaa wuxuu ku sugnaanayaa 10 saac in ka badan buu ku sugnaanaya oo qofkii taabtaa ka qaadaya waa arrin khatar ah hadduu bir taabto ama albaab taabto ama marka waxa weeye uu taabto bac taabto yani waxa weeye fayraskii waa ku sugnaanaya ilaa 10 saac in ka badan baanu ku sii sugnaanayaa bay yidhahdeen saas aawadeed taabashadu waxyaalo ku faafay ka mid waddannada qaarkood argagaxa uu keensaday waxay sababtay inay joojiyeen jumcadii iyo jamaacadii waana qalad waxay yidhahdeen masaajidda ha la iska addimo oo shicaarka ha muuqdo laakiin waxaa lagu addimayaa bay yidhaahdeen alsalaatu fii buyuutikum xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax halkii la odhan lahaa ay waxayn guryihiinna ku tukada waana qalad taas yacni waxa weeye sidaa in la sameeyo oo looga tago yacni shay waajib oo sharciya oo jumcada khaas ahaan waa ka sii xag jirtaa iyadoo jamaacada iyo jumcada midnaba waa inaan looga tegin laakiin wakhtiga in la yareeyo iyo taasi waa tartiibo kali weeye ashyaada sunnaha ah way dhici kartaa dee haddii darar laga baqo marka waxa weeye in la nowcan maa la xadido iminka salaanta gacanqaadkoo kale waxyaaluhu ku faafaya ka mid tahay weli waddankeenna hadda halkaynu joogno ma soo gaadhin baa la yidhi oo weli ma ogin cid lagu sheegay ama amaaraad cid lagu arkay maynaan maqal laakiin ilaahay ma qadaree haddii ay dhacdo yacni waxa weeye in aad loo dadaalo aad la ysu ilaaliyo oo yacni waxa weeye ijtimaacyada iyo kulammada iyo aad la ysaga jiro ayaa aad iyo aad markaa u habboon waxyaalaha aadka kolle khatarta inoogu hayana waxaa ka mid a bahalka qaadka la yidhaahdo dee haddii lasoo taataabto si yar buu inoogu faafinayaa iminka qof qabaa hadduu qaadka soo taabto dee qaadka waad garanaysaayoo ilaa tuulooyinkuu gaadhaa tuulo walba waa la geeyaa khatar baabaynu ku sugannahay baalkii markuu etoobiya yaallo ou joogo ou kiiniya joogo oo labada meeloodba soomaalina ku dhaqan tahay soomaaliduna xuduud aynay kala lahayn meeshii walba laysu tallaabayo xuduud xidhan aynaan lahayn yacni si yar buu inoo soo gelayaa qaadkana labada meeloodba waa laga keenaa oo yacni waxa weeye xagga muqdisho iyo xaggaana waxaa looga keenaa kenya waddanka badankiisana yacni xaggeenna iyo yacni inta somalilaanta iyo inta puntlandtaba waxaa looga geeyaa xagga etoobiya ayaa looga geeyaa soomaaliduna xuduud ma kale leh meel walba waxa weeye waa isu tallaabaysaa marka waxa weeye khatar baa jirta waxyaalaha tartiibaadka fiican in la sameeyo waxaa ka mid a qaadka in la joojiyo oo dadka cunayaa yacni bal inay iska ilaaliyaanoo bal hadda markaysagaa bahalkaa inay iska joojiyaanoo cuniba waayaan ilaa khatar baa u soo raaci kartee maanta hadduu fayraskaasi u soo raaco dee aad bay u khatar leedahay marka waxyaalaha aadkiiyo aadka khatarta inoogu waxay tahay oo isaga weliba waddannada qaarkood siduu ugu dhacay hadduu markaa inugu yimaado ay dhici karto dee inay markaa waxa weeye darnaan karto hadduu qaadkaas soo raaco dhaafayaaba ma jirto tuulo kasta waa tegayaa qaadkii meel kasta waa la geeyaa marka waxa weye aad iyo aad bay khatar u leedahay yacni baalkiina ilaa taabashadiibuu ku faafaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen haddii marka ay dhacdo bahalkaa haddii la sheego oo marka waxa weeye magaalo oo kale uu soo galo waxyaalaha tartiibada waxaa ka mid a musaafaxada ama gacanqaadkaoo kale in layska daayo oo afka layska salaamo haddii laga maarmi waayo mare iyo wax la midoo kale in laysku salaamo yacni waxa weeye in caynkaasoo kale la sameeyo laakiin taxadir la taxadirayo daraaddeed gacanqaadkaoo kale in layska jiro waayo gacanqaadkii waxyaaluhu ku faafayay ka mid tahay baalkiina khatartiisuu leeyihi
وبهل آدي آد وخطرة مركز أساس آوديد تحديرك آده لوجود دالو هدي لما قله إلى هاي مقدره إنه حوي ماله النقويمي أو مركا يعني سوقاري وإنه حوي آدي آد كل مضى إيو اجتماعية إيو أورورة إيو حيالها النوع سوكلا وإن آدي آد لو حددا لو يريا لوجود دالا قريها مركا إن لوجود كوبنادو استحقال كبضن يعني آد لوجود تحديرا مساجدنا وحوي وقت غير إلا تكنيو يعني لوجود كافتوما يعني وحوي هذا يدعو يعني إلى هاي مقدره وإن ترتيب تمركا وحوي يعني وضنا ذا قاركود أي قاتين وإن مركا نسكت حلوتشنا وإن مركا كود ذا إلى هنا وإن نسكبرنا وأنا إن آدي آذا إنه تحدرنا وأنا إلا أجادا سير إنه كفافي وأنا حنون خطرة وحن ولي بأسي هرسيهاي تذكر من عدود يدفاع شركود والضعيف كيهاي أما ويلك أما إسكحنون صنيا أما عرورها kuwaas waliba khatar ku siiyahay oo waxa weeye marka waxaanu abaaraya sanbabada iyo meelaha marka laga neefsanayo ayuu marka abaaraya marka naqaskiiba qofka marka inuu ku xidhmo oo halis u yahay haday dhacdo cidii marka inuu xanuunkaas uu iska dareemo waa inaanu qarsan way waxaanu khataro in la qarsado maaha yani waxa weeye waa inaanu qarsan xanuunkii dadkiina waa inuu ka ilaaliyaayo yani si aanu dadkii ugu gudbinna waa inuu ku dadaalaa meelaha caafimaadka wax la midkaana waa inuu la xiriiraa yani si waxa weeye isagina loo kantaroolo yani waxa weeyaan dadka kalena aanu ugu gudbin isagana wixii caawimo loo samayn karo yani marka loogu dadaali karo yani waxa weeye waa arrin aad iyo aad kolley muhiimadiisa u leh marka waxa weeye taxadirka hala badiyo ilaahayna hala baryo xanuunkana waxa weeye waxyaalahu inoo soo raacayo oo qaadkaasi ka mid yahay aad looga taxadiro qaadkana waxaan leeyahay dadka qaadka cuna iyo dadka ka shaqeeya qaadka inaga joojiya qaadka iska dhaafaha cunina yani waxa weeye diin ahaan isagoo u xun ayaa haddana caafimaadkiinana uu dhibaato ku leeyahay dhicina karta xanuun inuu noo soo raaco marka aad iyo aad in loo taxadiro ayaa habboon ilaahayna haynaga badbaadiyo dadka muslimiintana ilaahay ka badbaadiyo muslimiintoo dhan ilaahay ka badbaadiyo nadaafadana aad iyo aad ha loogu dadaalo gacmaha waa in aad loo maydhaa oo waxa weeye markaa saabuun ama shaambo ama wax la mida markastoo qofku wax cunayo waa inuu ku maydho waa inuu ku dadaalaa nadaafadda aad ha loo ilaaliyo yani aad iyo aad ha loogu dadaalo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaghfiruka atuub ilayk